adduunyadu waa maadays miisina uu matalayaa waxa la sugaabaa waa finalka koobka adduunka ee FIFA 2022 ee lagu qabanayo dalka Qatar yey guushu raaci doontaa ma Argentina mise Faransiiska haddaba garoonkee ayaa lagu ciyaari doonaa caawa waxa isla ciyaari doona labadii kooxood ee la soo reebay ee Croatia iyo Morocco laacibka 29 jirka ah ee Hakim ayaa caawa dhaarsan soo dhawaada asxaabta qaaliga ee ku xidhan channelkeena Maxamed Wardi Official intaanan muuqaalka bilaabin waxaan ka codsanayaa inaad like ta saarto asxaabtaadana u sii share garayso aad baad u mahadsantihiin finalka koobka adduunka ee FIFA 2022 ee lagu qabanayo dalka Qatar ayaa la ciyaari doonaa maalinta Axadda oo ah bishan December 18keeda waxaana caado u ah finalada koobka adduunka in maalin Axad la qabto dhammaan finaladii koobka adduunka oo ay ku jiraan 13 koob ee ugu dambeeyay ayaa la qabtay maalin Axad ah haddaba labada koob ee maalin Axad la ciyaarin waxay kala ahaayeen finalkii ugu horeeyay koobka adduunka ee 1930kii waxa la ciyaaray maalin Arbaca ah iyo finalkii koobka adduunka ee 1966kii waxa la qabtay isagana maalin Sabti ah haddaba finalka koobka adduunka sidaynu ognahay waxa wada ciyaaraya Argentina iyo Faransiiska yey kula tahay inay badinayso ma Argentina ayay guushu raaci doontaa mise Faransiiska haddaba finalka koobka adduunka garoonkee ayaa lagu qabanayaa haddaba waxa lagu qabanayaa garoonka la yiraahdo Lusail garoonkan ayaa dhismihiisa si gaar ah lagu dhisay koobka adduunka ee 2022 haddaba garoonkan ayaa la bilaabay sanadkii 2017kii waxaana la soo gabagabeeyay bishii Abriil 2021kii haddaba Messi meendhasarcaadkiisii ayuu la soo bixi doonaa oo guusha ayaa raaci doonta mise guuldarada ayaa raaci doonta haddaba Messi oo daadiisu ay tahay 35 sano waa la eegi doonaa bal habeenka wacdaruhu dhigo Faransiiska ma guusha ayaa raaci doonta mise guuldarada ayaa raaci doonta waa ciyaar xamaasad leh oo caalamka oo dhan ay daawan doonaan haddaba Messi ayaa noqday gool dhaliyaha ugu goolasha badan koobka adduunka ee FIFA 2022 ee ka socda dalka Qatar weeraryahanka 24 jirka ah ee Mbappe ee ka soo jeeda Faransiiska ayaa isaguna koobka adduunka wacdara dhigay waxa uu na dhaliyay 5 gool haddaba caawa yaa ciyaari doona caawa waxa wada ciyaari doona labadii kooxood ee la soo reebay waa Croatia iyo Morocco laacibka 29 jirka ah ee Hakim ayaa caawa dhaarsan oo wacdara muujin doona yey kula tahay inay caawa badin doonto haddaba ciyaartu waxay soo dhici doontaa 6 maqribnimo haddaba asxaabteeda qaaliga finalka koobka adduunka yaad isleedahay way qaadayaan ma Argentina mise Faransiiska fikradaada kumatiga hoose nugu reeb insha Allah oo sii saadaali aad baad u mahadsantihiin asxaabteeda qaaliga muuqaalkana like ta saara waanigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waynooyo muuqaalka xiga insha Allah